بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waxaan wadaagi doonaa muuqaal yaro kooban oo ku saabsan heesaha la qaado iyo muranka ala dhex yimaada. Heesaha waxaa jira in badan oo maqashaan heesa la isku haysto. Haddaba waxa ugu cajab badan heesaha qaar. Hees laba abwaan sameeyeen, abwaan saddexaadna oo sheegto. heesta tiraahdo haddaan gudin ilaahay aanu kugu gargaarin waxba kuma goyso gacmaha ku daala. heesta waxa caan ku ah Ciise Dhancade, waxaa se alifay Maxamed Aadan Dacar iyo Axmed Salebaan Bide. iyadoo maalin la wada fadhiyo ayaa Allah u naxariistay ninkii la oran jiray Sigsaag uu sameeyay laxan amba cod, markaasuu ku yiri Axmed Salebaan Bide iyo Dacar oo fadhiya heestan midho ku gura ma laxankan midho u sameeya. dabeeto beydkii koobaad waxa sameeyay Axmed Salebaan Bide, beydkii labaadna waxa sameeyay Dacar. Dhancadana goobtuu joogay. dabeeto heestii intii cajab galisay buu qaatay oo uu warbaahinta ka sheegay, sida ay sheegeen dadkii heestan lahaa iyo kuwii xoogaalka u ahaa. waxaa jirta hees kale oo iyaduna caan ah oo tiraahda nafkooda iyo roob galbeed midkoodna hadduu galbado gadaal uma soo noqdo. waxaa wada leh sayidka iyo xasan ganay, waxaana loo maqlaa inta badan kay. markaa heesuhu waxay leeyihiin cajab badan. waxaa jirta heesa tiraahda looxa iyo khadkiisu mar bay kala lumaan oo aan lilaafan lagu qorin. Saada Cali baa qaada, Aadan Tarabi baa ku caana. waxaa se wada alifay Xasan Ganay iyo Ibraahim Gadle. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.